haddaba kulankan guddiga fulinta iyo golaha dhexe xisbiga muraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya isku shaadhaynta lagu sameeyay golaha kaabineyga deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo gudoomiyaasha gobolada deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa kulan ay isugu yimaadeen golaha baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo hogaaminaya afayeenka baarlamaanka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Maxamed Rashiid Isaaq isla markaana la hor keenay saddex ajande oo kala ahaa sida tan dagaani oo dalahanba doorashooyinka degmooyinkeena iyo maamul magaalooyinka dib loo dhigay aan saaxiibtay dib u dhigid waay mid labaad aan saaxiibta xafiis cusub xafiis science and technology oo looga daray xafiisyada deegaankeena mid labaad waay mid saddexaadna isku bedelka masku shaandheynta xubnaha kaabinetka dawladeena xafiisyada deegaankeena iyadana ugu horeyntii laga dooday ajadaha koobaad oo ahaa dib u dhigidda doorashada degmooyinka deegaanka maadaama oo doorashooyinka guud ee degmooyinka deegaanada dalka dib loo dhigay dood dheer iyo falanqayn kadibna waxaa cod dheer la iskula qaatay ansixinta in dib loo dhigo doorashada degmooyinka deegaanka ilaa waqti dambe intaas kadib ayaa lagu gudagalay ka doodista ajandaha labaad oo ahaa isku shaandhaynta golaha kaabinetka dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo maamulada gobolada deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana sharaxaad golaha ka siiyay gudoomiye ku-xigeenka xisbiga muraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ahna madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar si hadaba aan shaqooyinkan u sii wadno waxay u baahan yihiin inaan reshafal samayno way baantay reshafal aan cid maanta halkan aan leenahay ninkaas laakiin tactically xeelad iyo maxaan ku raay strategically inaan maxaan ku raay mashagaashig aan saas ku samayno goormi noo qorshaysnaa intuuna imanin waxa weeye maxaan ku raahaa rasaaruhu laakiin maalinba meel ku sidii maalinba wax ku sidiyaysa wax noo qorshaysnaa oo isla qaadanay oo miiska yaalay oo hore ugu sii shinayba isku shaadayntani insaan la isku shaanday wax shakhsi loogu danaynayo maxaan ku rahaa ama shakhsi kale maaha haddaba madaxweynaha oo ka hadlaya bislaanshiyaha siyaasadeed ee xisbigu maanta gaadhay ayaa ka warramay tallaabadii iyo xaaladii cilmiyeysnaa ee lagaga soo baxay abaarihii baana ee deegaanka soo maray sidoo kalena waxaa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Cabdi Maxamuud Cumar uu carabka ku adkeeyay in saamaynta ka dhalatay fatahaadihii dhawaan ka dhashay roobabkii lixaadka lahaa ee ka daayay deegaanka isagoo bulshada deegaanka Soomaalida Itoobiya ku booriyay in roobabka baaxadda leh ay beeraha uga faa'iideystaan waqtigan xaadirka roobabka jiray waa nimco Ilaahay keenay horta roobku shalay waan ogeyn abaartan soo maray xukuumadda iyo shacabku iyagoo gacanta isqabsaday Ilaahay ka shanay ayaan kaga soo gudubnay abaartii gudaha geeska Afrika ku dhacday abaartu gaar ahaan meel kasta oo Soomaaliya degtay amaar saameysay Elino iyo Lino wixii loo jiray waxa weeye maxaan ku rahaa sababa waxa weeyaan khalkhalka hawada wax ka yimid iyo waxa weeyaan wasakhaynta hawada wadamada horumaray ay sameeyeen iyaga wax Ilaahay keeno oo sawahaas leh ayay abaartu ku timid baahed waxayna ka jirtay xoolo dhaqato meeshii jirtay amarka Ilaahay xoolo dhaqato gaar ahaan ama ha ahaato Oromia qaybta xoolo dhaqatada ah dabuub kalena qaybta xoolo dhaqatada ah waxa weeyaan deegaanka Soomaalida canfarto kale meelaha xoolo dhaqatada ka jiraan geeska Afrika meel ay Soomaali degto oo xoolo dhaqatada inta abaar kulul ba ku dhacday oo waxa weeyaan qaangaar laakiin waqtiga abaarta inaan dadkeena la samata baxno ay Ilaahay karsiiyay inagoo shacabkeena iyo kaashanayna bulshadeena iyo Ilaahay kaashanayna waxa weeyaan maxaan ku rahaa habeenii maalina shaqaynayna ayaa waxa weeyaan waxaan ka Ilaahay naga soo talo bixiyay abaartii imikana de waxa weeyaan inaan ku shugulno Ilaahay naga muday si aan u sii لا شكرتم لا زيدناكم يا سما إن وحويان أنا أبارتي وحويان إلهي نقص علينا إلهي وشغلنا أي محاك رهاي يلي باين وأي شلة وحن صامرنا أبا كل البان صامرنا أو كنت هذانا حنونا فربنا سشو بيوت كيوكل حنونا فربنا وشي هدي أين شعب كنا إلهي صاب إنه غني الهين شعب كنا هدي إلهي ونصاب إنه غني الهين أبارتي يوم ولبنا شو بيوت كيدا عاي
gaar ahaan degmo gobolkan waxa weeye dhulkan ciidda ka dhacay isku mid baa inta badan laakiin meelo ugu sii badnaa waxay ahayd gobolka Jarar Qoraxay Doolo ayay ahayd meelaha ugu sii maxaan ku raadnaa degmooyin hadii la yiraahdo dhanka abaarta gaashaamo Qorile tulada Qorile waxa way mataqaanaa dhanka shoobiyoodka iyo waxa weeyaan caleen meesha la yiraahdo Buuhoole meesha la yiraahdo waxa weeyaan danood ayay ahayd meelaha maxaan ku raadnaa xagga shoobiyoodka ugu sii daraa ama ugu sii daraa maxaan ku raadnaa dhanka abaarta deegaanka gaashaamo kaliya run ahaantii waxaan dhihi karaa xilligii aan gaashaamo tagnay abaarta oo gobolada kale aan ku dhicin oo gobolada kale ay markaa dareemeen ay kuleylkii dareemeen waxa weeye kuleyl badan iyo waxyaalo badan oo dhanka abaarta ay jiraan ayuu ilaahay gaashaamo la geeyey gaashaamo markii aan tagnay waan khalkhalay markaa haddaba yacni gaashaamo markii aan istaagnay inta u dhaxaysay waxa weeyaan ceel baxaya gaashaamo ama tuulada caana madoobay markaan ka baxnay ilaa ay gaashaamo inta u dhaxaysa banka xaguga wixii aan ku aragnay aad buu noo khariibay ama dadka waxay halka joogay taa waxay keentay faa'iido dhanka kale oo inaan abaartii iyo shubabiyoodkiiba qaylino oo waxa weeye ay noqoto yaani in aan cabsano oo aan ilaahina barino laakiin baaxadda intay la eg tahay ayayna tusay ka dhigan tahay taas awgeed xukuumadii oo socota mas'uuliyiintii deegaanka iyo kuwii gobolada iyo degmooyinka oo soconaan gaashaamo tagnay ayay khalkhalkaas u dhacay markaa hadaba taa goboladii kale inay ku badbaadaan dowladda federaalka markiiba aan iyo cid ay khusaysiba waa markii ugu horeysay deegaanka Soomaaliya Itoobiya awal abaar baa jirtay dowladdu deegaanku wax ka qabto ma jiray laakiin xukuumaddu waxay dareentay abaarta iyada oo gobolada kale meel kale ayna iyagu dareemin ama ayay khibrad ka heshay gaashaamo ayay ku badbaadisay gobolada kale ee dalkeena horta ilaahay saasuu maxaan ku raacay abaartii iyo shilbiyoodkii bay nooga soo saaray waana wax ilaahay lagu mahadiyo inaan imikana ka faa'iideysana loo baahay oo wax beerano oo kayd cunus dhigano ayaa loo baahay magaalada mustaxiil waxay taalaa banaanka saacada mustaxiil beer aan asaas kale waxa weeye maxaan ku raacay afdheer iyo liibaan meel badan baa qaabka wabigu meeshu marayo dadkii ugu dhibaateeyay dib u geystay maantana shacabku gurmad bay looga baahan lamida kiishay marka hadda ka hor xilli aan tagnay mustaxiil la magaceeda oo mustaxiilade ma noqonayso weeye mustaxiil marka lagu leeyahay impossible weeye horta degmada mustaxiil magaceeda waa impossible soo saas ma mustaxiil yani meeshay degan tahay waa impossible weeye inagoo magaca adeegsanayna shacabka oo inaan ka dhaadhicino war meeshan ay degtaan waa impossible waa ma dhacdo ee ka guura meesha oo soo dega inaan wabiga korkiisa bay degan yihiin hadduu fataho way diideen shalay laakiin hadday diideen inaga caqli waa inaan ka yeelama maanta waa inaan ka yeelama mar kasta inay yani ay khasaaraan maaha waa run markuu fataho way ku beeran oo dhinac faa'iido ka leedahay laakiin iyagu inay ka badbaadaan beertiisa isagoo ha fataho oo ninka reer mustaxiil isagoo beertiisii leh ha fataho ha beerto laakiin caruurtiisa kala fogaadada meeshu degan yahay inaguna aan ka caawino oo taas weyn هذا مستحيل أنا بحر سعادة وأنا أقول من الدين وأنا بحنا هوصل على أنا سيد شلك ولاقي يحبان تبع عن شعب كانوا يلقى بسنيني إنا هوصل على أنا ويان تاسم حضرة أما مذهب هذا أما حلمان هذا أما حدون هذا إلا أما ذحونا محاكرة قدومية حزبي أفيان أنت ما أنا أسرعنا ونهوصل على أنا يلا بينا وهذا قاشامه وحيناه مستحيل دي شرع هذا وحيناه مستحيل قاشامه شرع وارتي بنوقف من هذا نفتح هذا نوقف منه